soo dhawow. Kilibkan waxaan rabaa inaan kala hadlo dadka cusub ee hadda Jarmalka soo galay, khaasatan dadkan Poland ka soo galay. Jarmalka markaa imaatid, saan wada ognahay, waxaa la iska qaadaa faro Dublin ah. Okay? Faro Dublin lahow ama ha lahaanin, faro Dublin ayaa laga qaadaa. Kadibna waxaa lagu marsiyaa su'aalo gaagaabiya oo 5 su'aalood ah oo arrinta Dublinka laga wareysanayo. Saan wada ognahay haddeer dad badan oo Soomaali ah ayaa waxay ka soo galeen dhankan iyo Poland, oo Poland faro qasab ah looga soo qaaday dadka qaar iskood u soo dhigteen. Dad qaar marka hadda la sheekeysatid oo kuu sheegaya in Poland lagu jir dilay oo ciidanka Poland ama booliska Poland ay dadka jir dilaan. Xitaa wiil wuxuu iga sheekeeyey inay sanka ka dhaawaceen oo sankiisa uu jabsan yahay. Okay, marka dadkaasi oo kale. Marka hadda faraha Dublinka kaa soo baxaan hadda wiilka aan idiin sheegaya sankaas laga jebiyey oo ciidanka booliska oo Poland ay ka jebiyeen. Hadda Jarmalka wuxuu u soo diray Abschiebung nach Poland. Okay, oo la dhahay fara Dublin aan leedahay, Poland aan kugu celinaynaa. Marka qofkaasi oo kale waxaa u furan ama qof walba oo Poland ka soo galay oo warqadan diidmada oo Dublinka u soo dhacday inuu lawyer qabsado. Fiiri, mar walbo arrintaada lawyer waa inaad u qabsataa. Adiga iyo dowladda waa inuu lawyer idin dhexeeya. Ma fahanteen? Because dadka qaar waxaa arkaysaa hadda oo luuqii la soo hadlaayo ku dhahayo warqadaas diidmada ii soo dhacday, Italian ka imaaday ama Poland aan ka imaaday. Okay, because waa lagu celinaa leedahay, lawyerna ma qabsanin. Sabab. Okay, lawyer qabso. Lawyerka wax weyn maahan, 30 euro ama 50 euro waay. Okay. Marka arrintaada ayuu wax ka bedeli karaa hadduu Ilaahay u fududay. Marka mar walba waxaan kula talin lahaa inaad lawyer u qabsatid arrinta Dublinka. Khayr badan. Salaamu calaykum.